السلام عليكم واني سلامي كسو دوادا جنالكيغا إنو هويو maanta waxaa rabaa in aan reaction ka bixiyo wareysiga la wareysanayay dumaashideena Hani Kamaal Cabdalle xaaskiisa waxaan laga wareystay Adna Janaal waxaana wareystay Saxaaf su'aalaha la weydiinayo waa su'aalo iyada ku socdaan iyo dadka bulshada in ay ogaadaan yoo yahay Cabdisalaam markaas daawasho wacan waayo Cabdisalaam maninkaaga oo 8 caruur aad u dhashay laakiin 5 haatan ay joogan ma taqaana Cabdisalaam qofku yahay ala weydiyay Cabdisalaam oo yani 8 caruur ah u dhashay yani 5 hadda u joogan 3 ka dhimatay ma taqaana Cabdisalaam jawaabta aan isla dhageysano horta Cabdisalaam ninkeyga ma ahan laakiin waa aqaana Cabdisalaam waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna ana u keenay liano waa ogtahay qofka leynka waa la isdhaafsadaa marka maadaama asaga oo ilmo haystay anigana aan leyn u baahnaa ilmaha aniga soo waday markaas aniga wali markaas zaid u yar marka ilmihii iyo aniga isku sidii aan u nimid wadanka Sweden waan aqaanaa ano jooga Kenya oo iyo codsaday in aan ilmihiis aan u soo wado iyadana zaid ayay u yareed okay jawaabta oo waadax ah saas ay u bixisay su'aasha kale la weydiinay dhageysi wacan waayahay markaad Sweden tagtay muddo intee leeg ayaad wada joogteen markaad Sweden tagtay muddo intee la eg ayaa la joogtay qofka markaad u tagtid waqti ay la joogtay yani Saxaaf su'aalaha uu weydiinayo kama xishoonayo si daacad ayuu u weydiinayaa ma sha Allah qof loo dawdeysado wax badan ma wada joogin asagana kule guriga deganaa anigana gurigan deganaa inta badan marka waa saas laakiin qof walaalkay ah oo xiriir yani walaaltinimo naga dhaxeeyo oo ilmaha caawiso intaas oo dhan aniga waa ahaa xidhaaday aniga waxaan ahay yani kala guriga degnaayeen iyada waxay caawinaysaa caruurta oo asi dhalay ay dhahoosaa caruurtan iyada dhashaa la dhahoyaa hadda waxay dhahoosaa caruurta ase oo dhale aan u keenay aan meel kale aan la degay ilmiis ayaa caawinay walaalkii ayuu ahay Cabdisalaam maba iqawiinba arinta aroos ma ku jirtaba runta ilaaha og aan dhageysano daawasho wacan waaya hadii aad ahayd qof walaal aad u ahayd ilmahan aad caawin jirtay isagana uu yiri waa xaaskeyga 8 caruur ay dhashay Soomaaliya ayaan ku qabay sidee loo xalinayaa marka farqiga gaabka ay labadiin idin dhaxay sidee loo xalinayaa asina wuxuu sheeganayaa in uu ku qabo oo Soomaali ku qabay iyadana waxay sheeganaysaa in ay Kenya ku baratay Cabdisalaamba yani in ay Kenya leenkan isdhaafsi ah in ay ku baratay ilmaheed yani oo 5 caruur Sweden ku keentay markaas arintan timir balaf baa ku jirto okay jawaabteed aan dhageysano horta farqigaas horta waa mid dadka bulshada aad u wareeriyay anigan Hani ay haysato xataa ku wareeray marka waxa noqonaysaa inaan taas ku xalino kulli anaga wadan sharci laha joognaa wadankaas waa inaan asagana uu dacwo tago anigana aan dacwo tago horta hooyo ilmaheeda inkareys inay jirto uma maleynaayo anigana Kamaal waa u sheegi lahaa hadii aan ilmahaas dhalihi lahaa ama uu igu qaadan lahaa ama uu iga tagi lahaa marka Kamaalna ma aha nin lacag badan oo aniga aan lacag u xilanayo maanta oo aan isdhahayo qofkan istu jaanisa kugu dhaafayo marka ma u maleynaayo inaan saas sameeynayo qof nin qabana ilama xidhaaday yani xalinta wadanka joogo ee iiga joogan sharci ayaa ka jiro sharcigaas yani kala bixinayo waxay dhaaday Kamaal hadoo yani aan u sheegi lahay يعني wo iga tagi la wooni ila joogi la sax waay يعني calaf ilaahayo hadii la kaltay waa la kaltay hadii la joogno waa la isku jooga يعني mar walbana waxay ku dhaaday hooyo ilmaha difrees adduunyada ma wajirtaba hooyo waa hooyaba waa jannada adduunyo waa jannada aakhiraba okay ku soco Kamaal iyo aniga muddo issukaansanayna u maleynaa inta issukaansanayna habeen walba waan isla hadli jirnay asaga buu ogyahay haduu hal mar xataa uu arkay nin ama ilmo waayahay Kamaalna mudday issukaansan jireen hadoo qofka bini'aadamku uu fahmi lahay ilma lama qarin karo guur lama qarin karo furuuna lama qarin karo waxaan adduunyada lay qarin karin anay dad muslimiin nahay
mana guursan karno gabar la qabo si hore saani uu soo sheegay waay su'aasha kale ku xigta laakiin wuxuu yiri sanadkii ugu dambeeyay Cabdisalaan waxay la soo baxday wiji cusub oo xaafada badanaa maba jooginba marka taa ma la dhigi karaa sanadkii aad shukaansanaysay Kamaal wuxuu ahaa sanadkii aad guriga ka maqnayd markaan dhahay saxaaf yani waa nin daacad ah oo su'aalaha si daacad u weydiinayo waasaan wuxuu ku dhahay yani saxaaf wuxuu weydiiyay sanadka يعني عبد السلام وحده سندكي يعني قري لبا يعني حلقة السنة ان قري ما جري ميله كله كوريج جرت عمل قف يعني حناقضي ان اسين وحو ودي سند كاس اما كما اسكو برتين اذن وحده سكورا بشو كاس جرنا كسعو والله تاس لما دي كراني قف شقيا اهي oo la og yahay maalin walba shaqeeya oo hal maalin aan guriga joogin bulshada dhan ay ogtahay marka taas waxaan dhigi karaa waa been Kamaal ka horna aniga sidii aan hore u sheegay wiilala ishukaansan jirnay Kamaal ka hor dada yaqaanay ani kulay qof Instagram wax badan ku jirta ahay maadaama ciwaanadeedii la jabsaday marka saas ee live ah gali jiray waxay dhaaday Instagram aan ku jiri jiray dhalinyaro kale aan shukaansan jiray aqoon ii lahaayeen okay Kamaal dadaaba ka sii horeeyeenba Kamaal ilaa calaf uu daray okay meeshan wax sixir laay ma jiro ilaa haddana aniga yani hadda xagga diinta islaamkan aan fiirino laba qof waaweyn waa diinta islaamka soo barteen isma dhigi kara Kamaal Cabdalla asagoo ah yani oo qof weyn in oo shukaansada xaas la qabo markaas waa sii wadi doonaa video-na daawasho wacan subscribe no soo saara tamaan ka qayb gali jiray tartan aqooneed oo kale qof si fiican loo yaqaanaa qof gabanaysa ma ahayn waayahay هني ما واحد إلى هاي قبل النجمة هايد وأنا عد كده دقيستي يدرين كي يكون ليسو أنا يقول مدلين دي نجمة عد كي يكون ليس درين كي يكون ليس عادية مدلين ميانا لهسا صحاف لجن هوك سلام صاحب ساس واي نجمة هدي أنا قفك عوان كي هذا جبيه إنستغرام كجبسده هرتو أنا يا نجمة ضد وحان أهين ميل سكولا نول marka qofka Instagram-kayga jabiyay oo email-kayga jabiyay horta waa Najmo ma u maleynayo cunugka email-ka jabiyay waa Najmo isku xaafaday ahaayeen okay inuu jiro hooyadiis email-kiisa jabinaya rabana inuu ceebeysto xataa Cabdisalaan hadaan xaaskiisa runa ahaan lahaa ama nin aan kala tagno oo ahaa lahaa ma u maleynayo inuu saas ii ceebeyn lahaa way hooyo saani u sheegay waa hooyo wax walba ee ahaato cunugeeda hadii ku caasi xataa way jeceshaa عبد السلامنا وحيد هذا حتى يعني أسوء قبلها يفور لها حتى أرنتس يعني مسميل لهن واو good answer what وياي نجمو واحد هذا وحان هن ضد ميل وذا جوجو بل يشرح محد ولا جدا نجمو نكا إلو لجي نكان سربارو إجا وايو يعني سؤال جوابته إذا كانوس أو وحوك نحن هذينا سؤال قفك مسكح ذا بدن سانو وح ورسا ددك لكن وحادا أقون أولين هالشيغن فكرة واكد يبكرتا رأين واكد يبكرتا كسعو هي النجمة سكوميلا انتقرين يعني معناها ددك لشاكين كرما هين النجمة واقف وين أنا قف وين هاي ما دام أنك عن مركي هرتبة إسلا جوجني ضد إسلا يمد أنا هاي حتى ضد وحوك لبحسين هين هين ساس درادة لكن إن إيميل كي أساس كجبو وياي كيا ان wax oo qarso mal qofkan saaxiibkeyga waa wixii qalbiga ku jiro waa u sheegay muhiimadu waxay tahay qofka aad aaminaysid fiir yoo yahay afurun lama gala ee qalbi furna la gala ku soco maxaa ku jabsata ayada waa gartay maxaa sabab marka in Cabdisalaan iyo caruurtiisa dhamaantood inta meel ay soo fariistaan yiraahdaan hani waa xaaskeyga hani waa hooyadee dalka kaleeyeen maxay tahay jawaabta لأن لقيت محاسبة وعبد سلام إن أسوف السوشيال ميديا أرده هني وحاسكي يعني عرورتي حتى أسوف ديسي محاسبة وي جوابت إذا هنا أفجوج لو ما أذيق مرك الله يسوى مالي محمد سانواي والله ما فهمي كرورت عرورت وعرور في عن لكن أنا قبل حن قبائل هذا عرورت وعرور في عن لكن أبوهد هيه أبوهد بدلي أبوهد وبدلي ما wax xiriir ayaa kala dhixay waxaad sheegtay inuu yahay qofkii ku soo waday markuu ku soo waday kadib ma xiriir baa kala dhixay Cabdisalaan may xiriir igama dhixaynin laakiin xaaladoo dhanba waxa xiriir baa kula dhixay Cabdisalaan markuu ku soo waday may ay ku jawaabtay okay jawaabta kale aan si dhageysano timid markii xataa
meherkii markuu jiray xataa qofka ugu horeeyo oo sawirka meherka iga qaado wuxuu ahaa sawirka aad meherka ood aragtay oo Kamaal meeshiisa uu soo saartay oo ii xiran yahay maalinkii meherka boorka xataa lagu soo dhajiyay aniga qofka iga qaado wuxuu ahaa Najmo arrinka mobilka ay iga qaaday ya marka sawirka qaaday oo boorka lagu soo dhajinayo meherka waxaa sawirka qaaday Najmo qofkay tahay aniga ma ogi hadaa iniga ogtiin comment inuu soo qoro Najmo ayaad wada joogteen Sweden adigoo joogta ay sawirkaas ka aniga Najmo ma anaa ka dalbaday inay sawirkaas iga qaado maadaama sawir meherka aan u baahanahay waa gartay marka waxa jira warar kale oo sheegaya in meherkii ka dhacay Afgooye wadaadkii adigu ku matalayay oo aad sheegteen inuu aabaha ahaa inuusan aabaha ahayno uu malaawal ahaa bal arrinka maxad ka leedahay horta arrintaas horta waa qalad aabahaagi oo yani Afgooye qofka adiga yani walidaada qaaday aabahaaga ma ahayn aabahaaga dhabta yani maxaa u keeni weysay camal waa sheekada jawaabtan iidan ka sugeynaa inay saas yiraahdaan horta aabahay ma ahayn waa run laakiin wuxuu ahaa qof aniga isoo korsaday oo ilaa yaraantayda ila socday marka arrinta aabahay iyo anigana aaday meesha la iiga faa'iideystaba horta waa meeshaas oo yani mar walba la iigu hanjabi jiray marka arrinta aniga iyo aabahayna waa arrin secret oo ma rabo inaan hadda social media keeno haddii aan sheekadaas ka sheekeeyana waxay noqonaysaa mawduuc cusub bal haniye ilaahay baan kugu dhaarshay waxay dhaaday arrinta aabahayga yani haddaa meeshaan keeno waxay noqonaysaa mawduuc cusub wixii barbaad familka gooni qoftan waxay yani raalik familka in ay social media soo gelinin hadeeba arrinta dhacays wayba soo galayaan wayna arki doonaa aan si dhageysano su'aalaha kale si weydiinayo yani jawaabaha ay ka bixinayso u jeedin yani meeshan qof yani una xaya mala Yuruba la jooga anagana reaction waxa uu bixinayna waayo labadan bari waxa badatay diinta islaamka in lagu dhaco diinta islaamka waxyaabo qaldan in laga sheego yani dad muslimiin in yani malaawaal laga sameeyo oo dadka qaar youtube-leyda qaarkood in views ku raadsadaan wixii calooshooda cunaan waxa daa soo bandhigays waxyaabo qurux badan soo bandhig hanaga dhaadhicinin anaga dad waaweynaan nahay qof la qabo in oo yani qof kale guursan karo iyo way sixiran tahay sixirku lu sheego waxa ka awood badan qur'aan maasha Allah waa party 1 wareysiga hani insha Allah waxa ku soo xijin doona party 2 yani inkasta oo video oo dheer yahay video hadaa daawatiin subscribe like share comment ku soo bixiya commenting waxa noo qoraysiin naag la qabo ma la guursan karaa diinteena ma banaan dhigan laakiin adi fikradaada maxay kula tahay arrintan hoos noo soo qora waa maasantiin